بقولان سنو تجاي بهالكيك وعون شراي كابوجا قن وأرين كاس صل قلب عصر كمركي لتوكلي كبعد ولا سو جاري مركي لسو جارينا ورا كي ولا حريرني marka la xiriirayna waxay u yiraahdeen arrinka uu soo gaaray gabdhiina xaqiina soo dirayna hadda Soomaaliya waaye xuduuday meesha wax ka dhaceena waa xuduudda Kenya tirada gabdhaha waa 5 miyaam ka badan yihiin da'doodana maxaa lagu qiyaasayaa dadku waxay hayeen 7 qof oday iyo wiil yar baa ku jiray iyo gabdhaha gabadhu mid baa yirisay oo sharci lahayd oo reekay ahayd hadii dadka Soomaaliya iyo dadka Kenya xuduudda ka degan ama dadka Soomaaliya wada guurayaan ama dadka Kenya wada marayaan marka mar hadii baadiyada joogo hadii baadiye sharci la isku weydiiyo marka meel la yiraahdo bakorow markay soo marayaan oo baayoolay wadada hoos marta ee wada dhabalweedka soo aada meesha la yiraahdo Mandera iyo gabdhaha ku socdeen waxay yiraahdeen beesha ku socday ciidan baan la soo kulmay laba nin baa dhabaha hore istaagtay nimankii baa ka xiriirtay oo la kusay sidaas ay gabadha ku warbixiyeen inkastoo gabdhuhu wajay wax sida ay wuxuu jiraa wax badan ayna baahan karin dadkii waa la keenay inta jiifka bulabur waxa ka ahaa meesha jiifka la ka ahaa dowladda kii soo gaartay rabad baa laga qoray dowladda kii markii waa la xiriiray markii waxay yiraahdeen subaxda arsoon amaka waa goor gaaban weeye waxa markaa la tagay ninkii meesha ugu sareeyay disiga ninkii booliiska ugu sareeyay baa la kulmay waan wada hadalnay rabadkii way diyaareen waxay yiraahdeen waxa wax ka qabareynaa ribada nafaas siiya gabdhii dhaqaatiirtii iyo wixii way ku sheegeen in la kufsaday rabad baan qornay annaka wada jirra oo dawladda kii waliba ay qortay ayra marka jawaab aan ka bixinayna waayahay jawaabteeda marka waan u imaanaynaa waxaan rabaa inaad wax nagala wadaagto warbixinta ay dhaqaatiirtu qoreen waxa na soo gaaray warar sheegayo sida gabdhaha inay qaar aad u yaraayeen dhaawaca gaarayna uu culus yahay oo aad u ildaran yihiin bal arrinta wax nagala wadaag gabdhuhu gabdho ugu baa ku jirtay oo la guursanin waxay yiraahdeen xogaa yaro dhaawac ku yaalo oo aad aan u badnayn laakiin hadee gabadha kufsay waa taqaano dhibkeeda leedahay marka gabdhuhu saaka waan kaxiyay anay raaceen xaggay ila tageen way fiicnaayeen oo marka hadda qof maxaan ku raacay socol iyo dhib kale muusan jirin laakiin hadee gabar la kufsaday kufsiga wuxuu ka xun yahay wax kasta oo bani aadamka lagu sameeyo gudoomiye xayd marka waxaad ii waday in aad dawladda Kenya khaasatan degmada dariska tihiina aad hawshi idin socotay oo aad qorsheynaysaan in arrintaas wax laga qabto ayagana ay carab ku dhufteen in dadkii falka geystay la soo qabtay marka ma la qabtay dadkii lama qabanin waxay leeyahay dadkii meesha geeray baan sameynayna hawlgalan aadayna dhulkii baan tagaynaa wiilkii iyo yarkaayo odag la soo fasaxay iyo gabadhii soo carartay inta la isku raadiyo meeshii baa la tagayaa meesha waxaa laga degan ciidan Kenya oo xuduudda waardeeya ama dhisa xuduudda dhisa marka waxay yiraahdeen baartaan sameynayna rabot wala diyaariyay waxayna aad iyo aad abaljo soo bixiyeen sida wax u dhaceen abaljo naga kiyano waan ka wada hadalnay aan fara badan iyo ujeedi fara badan inuu dhacayna waa u sheegnay wax walba faaxsheynayna waa u sheegnay in diriis dawladeed qabo oo qaran xukuuma inuu sidaas sameeyo wax fiican ma aha gudoomiye xayd gudoomiye xuduudda Kenya iyo Soomaaliya falal badan oo dambi ah ka dhaco Soomaaliduna ha geysteen Kenyaankuna ha geysteen mararka qaar koodna ciidamada dawladda oo Kenya ayaa laga sheegtaa sida la socoto ceelwaq markii saddexaad oo laga soo sheegay in la dumiyay taaladii isgaarsiinta haddana laba qof ay ku dhinteen wararku siday sheegayaan ilaa Libooyo dhibabkan wuu soo noqday mar walba oo madaxda degmooyinka xuduudda la wareystana waxay yiraahdaan waan la wadaagnay dhigeena degmada nugu dhagan arrinta waa ka wada hadalnay raali gelin bay ka bixiyeen waxba laga qabanaya marka sidee dadka ku dhageysanaya qaasatan dadka reer Balaxa oo aad ugu micnaynaysaa dhibaatooyinkan soo noqday oo wax tilaabo oo cad aan laga qaadin dadkii geystay xuduudda hadda anaga aan deganahay oo ilaa iyo wixii dabasa ka soo sokeeyo oo ilaa inta hadda Balaxa waxaan ku raadin dhulka
nimanka qawaariijtaabaa meelaha qaarkood u badan dhib badan kamuusan dhici jirin oo maalinkii xuduudaha laga hadlaayey oo dhismaha labada boodhar dhexdooda laga hadlaayay ma ogiya buuqbuuqaasdooda wax kale maysan jiri jirin arrintan arrin cusub waaye hadda badal caawo iyo mandheera ku cusub gofsi ma jirin dhibaato kale kama jirin qaatiriintan sababka duulka taataagan baa baabuurta dhici jirtay awal oo dadka ku dhibaateyn jirtay dadka reekida meesha ku dhibaateyn jirtay xuduudda soomaaliya oo lasoo carari jiray xuduudda soomaaliya meesha looga soo cararana haddee waad garanaysaa dawlad gaadiidkeedii hubkeedii lasoo qaatay waxay laga filan karo marka dadka markii shabaab ay meesha galaan oo baabuurta ay soo dhacaan dadka dadweynaha way qaxaan iyaga oo xoolihii iyo maxaan ku rahdaa carruurta baa gacmaha laga qabtaa xoolihii oo jooga aqalka oo sidiisaa carruurta gacanta la qabtaa waayo waxay leeyahay dawladda kenya ka dambayso ilmana kala taqaano maxaan ku radaa jawaab cad bayna ka bixinaysaa wixii ay arag marka dadka way carraan carruurta ciyaalka duurka wala carraan laakiin ma jirto wax maanta ka horreeyey ama shala ka horreeyey oo ka dhacay xuduudan intaan aniga maamulka noqday ama deegaanka ugu dambayntii maxaa laga fili doonaa inuu ku dhammaado arrintan 5 gabdhood oo la kufsaday doonaa in ragga asaga la soo qabto maxkamad loo qolaan sano tagay bahalkii ku cuni jiray ka boga qaniyada يا لقى ترمي عدي وبعيد شما ما هو يستبوزي هامبوكا يا لقى ترمي ورركينا بديو علنكينا بيرتزا ورركينا بديو علنكينا بيرتزا علنكينا بيرتزا علنكينا بيرتزا Thank you.